Hirshabeele waxaa ka jirta dood siyaasadeed oo saameyn ku leh habqaybsiga beelaha wadadega labada gobol ee maamulkaasi. Siyaasiyiin ka soo jeeda Jowhar ayaa sanadkan aad ugu ololeynaya in dadka deegaankaasi ay helaan madaxweynenimo, iyaga oo taageero ka helaya dowladda federaalka ee Soomaaliya oo wadato qorshe ay ku doonayso inay wax kaga beddesho awood qaybsiga saddexda kursi ee dalka ugu sarreysa midkood. waxaase jira odayaal iyo siyaasiyiin reer Hiiraan oo diidan qorshahan, dhankoodana doonaya madaxweynaha Hirshabeele, kuwaas oo kulamo isdabajooga ku leh magaalooyinka Beledweyne iyo Muqdisho. beelaha ay ku abtirsadaan madaxweyne Waare iyo Cali Guudlaawe ayaa wada qorshayaal ay beelaha kale la dega kaga dhaadhicinayaan inay ku taageeraan sidii ay ku heli lahaayeen kursiga madaxweynaha. Cali Guudlaawe oo horey u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeele, haddana u ordaya madaxweynenimada maamulkaasi, ayaa ka dhaadhicinaya inta badan beelaha dega labadaasi gobol inay ku taageeraan nololihiisa. ila Xogaha ayaa ii sheegay in beelaha qaar ay ku qanceen doonista Cali Guudlaawe marka laga reebo beesha madaxweyne Waare oo qudheeda ku kala qaybsan arrintani. dhanka kale, siyaasiyiin qaarkood guddoomiyayaal gobol ka soo noqday gobolka Hiiraan ayuu Guudlaawe ku qanciyay inay u tartamaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeele. waxaa jirta kala qaybsanaan weyn oo ka jirta dhanka Hiiraan, taas oo ah in qayb ka mid ah dadka reer Hiiraan ay ku qanceen inay tagaan Jowhar oo ay ka qayb galaan maamulka halkaasi lagu dhisayo, halka dadka qaarkii ay ka biyo diideen. Cali Cusublo oo noqday madaxweynihii koowaad ee maamulkaas ayaa bulshada uu ka soo jeedo si fagaaraha ugu jeediyey inay samaystaan maamul ku kooban gobolka Hiiraan oo aysan ka qayb gelin doorashada Jowhar. madaxweyne Waare oo ay kala furteen ku-xigeenkiisii iyo guddoonka baarlamaanka ayaa laga soo xigtay inaanu markan u tartamaynin kursigaasi, laakiin ay jiraan siyaasiyiin uu wato uu xilkaasi la doonayo kuna taageeraya inay ku soo baxaan. Waare ayaa bilowgii sanadkan dowladda federaalka kula heshiiyey inaanu isu soo sharxin, taa beddelkeedana doortay dhaqaale hore loogu heshiiyey iyo in bila Soomaaliya ay u dirsato wakiil igada. ila kale ayaa ku warramaya in Waare loo bandhigay safiirnimo si bila Soomaaliya ay Hirshabeelle uga dhaqan geliso Damaca ay ku doonayso inuu madaxweyne kaga noqdo Cali Guudlaawe. Waare ayaa bilowgii sanadkan dowladda federaalka kula heshiiyey inaanu isu soo sharxin, taa beddelkeedana doortay dhaqaale hore loogu heshiiyey iyo in bila Soomaaliya ay u dirto wakiil igada. ila kale ayaa ku warramaya in Waare loo bandhigay safiirnimo si bila Soomaaliya Hirshabeelle uga dhaqan geliso Damaca ay ku doonayso inuu madaxweyne ka noqdo Cali Guudlaawe. dhanka kale, Waare ayaa beeshiisa kula heshiisan inaanu sabab u noqon in kursigaasi uu dhaafo, waana sababta Waare uu u danaynayo in uu kala diro guddiga doorashada Hirshabeelle. dhanka Beledweyne waxaan ka helaynaa inay socdaan shirar iyo kulamo ay leeyihiin odayaal, dhalinyaro iyo siyaasiyiin diidan dhaqdhaqaaqyada Jowhar, taasi oo ku tusaysa labada meelood ee la kala joogo. dad ku sugan Jowhar oo aan la hadalnay waxay sheegeen in xildhibaanada federaalka ku matala labadaasi gobol ay qaarkood joogaan magaalada, iyaga oo danaynaya in dhaqso lagu dhiso Hirshabeelle si ay u qabsoonto doorashada kuraasta labada aqal ee deegaanadaasi ka imaanaysa. taliyaha Nisa Fahad Yaasiin Xaaji ayaa iyada oo ay xiisadan taagan tahay Jowhar geeyey ciidamada gaarka u tababaran ee Damaca iyo dharcad nabad sugida. ciidamadan ayay dowladdu ku sheegtay inay sugi doonaan ammaanka doorashada, laakiin waxaa la rumaysan yahay in halkaasi ay ka fulin doonaan qorshaha dowladda si la mid ah sidii dowladdu ay ciidanka ugu faragelisay doorashooyinkii ka dhacay Galmudug iyo Koonfur Galbeed. siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo doonayay inay u tartamaan madaxtinimada Hirshabeelle ayay dowladda federaalka ku qancisay inay ka joogaan taasi, beddelkeedana u tartamaan mid ka mid ah kuraasta dalka ugu sarreysa, kuna taageeri doonto dhaqaale iyo siyaasadba. aqoon-yahanka deegaankaasi oo aan la hadalnay waxa uu ku talinayaa in lama huraan ay tahay faragelinta beesha caalamka, urur goboleedka igad iyo isu keenidda beelaha wadadega labadaasi gobol oo aan bilowgii dhismaan helin dib u heshiisiin ballaaran oo hirgasha. sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayay u jeediyeen inay ka tanaasusho qorshaheeda kana shaqayso sidii ay heshiis siyaasadeed u dhexdhigi lahayd beelaha wadadega labadan gobol, kadibna loo soo dhiso maamul ay dadku ku heshiiyeen.